muhiim waxaa noo soo dusiyey qof isaaqa wuxuu la wadaagay sirta wiil abti loo yahay oo hooyadii ay isaaq tahay laakiin asalkiisu uu yahay dhulbahante dhiigu biyo maaha wiilkii sirtii uu soo qaaday dhulbahantu dhinac keenay dhulbahantana warbaahinada garab taagan oo ay idaacadaydu ka mid tahay ayaana layla wadaagay waxaan rabaa codkaas in halkan aan ka shido haddaad dhulbahanta tahay videoga like saar share garee haddaad ehel wadaag dhulbahanta la tahay videoga like saar share garee hadduu dhiigaagu nadiif yahay oo Soomaali xalaal tahay muuqaalkan markuu ku soo gaaro videoga like saar share gareeya dhiga gruubyada Facebook meel walba hal la gaarsiiyo si fiican ha loo dhageysto sirta aan idin shidi doono warbixinta soo faahfaahsan aad ha loo dhageysto markii la dhageysto wax badan baa idinkaga bixi doona waan hubaaye bal dulka dhagihiina iyo dareemihiina isiya sirtan iyo codkan aan baahinayo barnaamijka dhammaan waa ku soo qaadan doonaa gabi ahaanba wuxuu ku salaysnaan doonaa codkan dhammaanna waxaanu ku wada dhageysan doonaa codkan waxaan idinka rabaa insha Allah muuqaalka markuu idin soo gaaro videoga like saara siina share gareeya hadduu Allah imo waxaan ahay wariye waxaan soo gudbiyaa xogta qarsoon aniga shaqadayda hay ugu heefin ila dhageyso sirta isaaqa maanta joogaana buu xarkii uu goostay cid kale oo soo qaban karta oo dabarkiisii dib ugu xiri kartaa ma jirto buu yiri aan dhulbahanta ahayn si markaa isaaq maanta kibirka iyo edab darrada ilaahay qolobo ku qabtaaye uu qabto aan waxaan aaminsanahay iyo ragga ila mid waaweyn buu yiri in maanta ay waqtigeedii bilaabantay muusana uu yahay buu yiri ninkii ay ku baaba'aysay isaaq iyo maamul dambe oo meesha ka jira wuxuu kaloo ii sheegay in ciidan aad iyo aad u fara badan وحافظ والبلقليو oo siiba dadkii danyarta ahaa dadku waysdhaamaan dadkii danyarta ahaa ee tuulooyinka baadiyaha magaalooyinka Hargeysa Burco Boorame meesha Barbaranka wada Isaaq oo dhan ninka Muuse Qayladaan uu diray iyo group wato oo leeyahay ka soo ururiya dhalinyarada siiba kii dib jirka ahaa kii qaadwalaha ahaa kii sakhraanka ahaa dadkii low life ka ahaa oo dhan dad maxshoota ah oo wax ay xeerinayaan ama ay danka galiyaan ayna jirin horta wuxuu waxaasaa mid lagu wada guray tababarka Madheera iyo darar weyne wuxuu ninkaas rabaa buu 6 bilood ee soo socda in dagaalkaasi socdo oo dhulbahanta inuu qaxo mooyaane aan wax kale meesha oolin wallahi taasoo saakay ku dhaartay maadaama aniga denin dhiigan wadaagna uu yahay wuxuu igu yiri abtiyo reerka dad meesha ka kaxaysatay inta ehelkaaga aan u sheeg ninka iyo groupkiisu waxay go'aan ku gaareen iyo isaaq in maanta dhulbahanta haduu diiday Somaliland inaan dhulbahanta dalka sii joogeenin marka idinku waxaad ka yeelaysaan buu yiri waxaad ka yeelaysaan idinkeedii taala laakiin anigu waxaan runta ku sheegayaa maadaama walaashay ay ku dhashay inaad meesha la socotaan inaan wax dambe oo la isu hareeyay ayna jirin ama la isu reebanayay ayna jirin tolkaana ha ogaado adiguna ogow anigu se shakhsi baan aad baan uga xumahay buu yiri in maanta dadkii kala fogaadaan laakiin way dhacday bal hadhow wixii soo haray ilaahay u taala waa hadalka ninka odaygan uu yiri waanu bisaraaxa ama si cadayna maanta idinku sheegay qofkii dhulbahanta ah ee wali maankiisa ayna wax gelin ama hidhi iyo sheeke iyo wax kale ku jira isaaq maanta wuxuu arkayaa inaan waxba u harin ma garatay waxayna aaminsan yihiin haddii carra dhulbahante ay maanta ka xoroodo gacantooda inay iyagana u dhamaatay nin walo maanta meesha xisaabta ku qoran dhulbahanto madaxaagana samaartay mashinku darbiga dalooliya ee drillinka la yiraahdo ugu drilling ugu samee ku daloolita meelna ku qoro muddeenu lahayn inagu manihiin dad uur wax ku qaada ama cuqdad qaba waa run laakiin markaad saysaan nin cuqdad ka buuxdo oo malax uurkiisa calooshiisa fadhido
dee dagaalku sidiisa waxa weeyaan ninka haddaydan isku level ahayn lama dagaalami kartid weli inagu hidhii baynu ku jirnaa aniga ta ii muuqato waxa weyn dhulbaahanta weli isaleelo iyo hidhiidhi igu sawir iyo dhaqdhaq baa lagu jiraa mid dal jooga iyo mid dibad joogaaba dadka in yar baa og waxan inta ogina weli waxaa ka dhaadhacsan fikir ah dadkaasi nabad ha nooga baxeen war wallahi inaan isaaq kaa baxayn oo billahi inaanu kaa baxayn oo tallahi inaanu kaa baxayn waayo 30 sana dadkan waxa la cabsiinayay fal iyo sixir lagu soo sameeyay meelayna garan oo la yiraahdo meesha Ingiriis ka tagay 1960 from yoocada tulooya cad inay igu leeyihiin Ingiriisna uga tagay reeraha la sheegayaana inayna shaqo ku lahayn ay yihiin dad ay ku ilaaliyaan ma garteen nin walba dhulbahantaa bal maxaa isaaq ninka odayga wuxuu kale uu sii sheego hadaan aan hilmaamay wuxuu igu yiri xitaa samaroonkii baa la qasbaya nin kasta oo gaashaan qaada oo samaroon ah oo maamulka Soomaaliland ku jiray qasab la soo qasbay xitaa waxa lagu yiri buu yiri mushaharka leed ka goynaya wuxuu kale uu sheegay 23 wasaaradood ee Soomaaliland tu leedahay isaaq leeyahay hal wasaarad mooyaane in 22 wasaaradood kale loo sheegay in 6 bilood soo socota in la dhimayo dakhligii galay oo 70% ba wasaaradda difaaca awal la gelin jiray ciidankooda in maanta laga dhigay 95% that means dhaqaalaha meeshan soo galo oo dhan in la gelin ciidan meel allaale meesha hub ka helayaan ama taageero ka helayaan maanta isaaq samaynayo marka raqbo wargeeda hadalkan ku dheeraan ma hadal badan ahaan buuxshaa leeyahay reality-ga iyo waaqiciga meesha la wataa ninka ku seexanaya ama ku soo toosayo oran ma hadal maaragtay gafa ku hadli maayo laakiin doqon dhalay baa tahay ninka ku fakaraya isaaq baa ka lugeynaya oo iskaga dhaqaaqaya laascaanood iyo carro dhulbaante ma wax ilaahay meel ugu qoran anu ma sheegin oo ilaahay wixii qoray deenu nobody knows laakiin waxa waaqiciga the facts on the ground nimankaasi niman baxaya ma xabad baana ka dhicinaysa xabad aadiriya daarood iyo jini insaad ugu yeerto haddaad iska dhicin wada xitaa inaad jini insaad aad u yeertay maanta noqonaysa waa isagu wuxuu arkaa inuu yahay inuu ku jiro dagaal xaq ah oo masiiri ah adna waxa uu taaganta dhul baan difaacanaya iyo magaalada difaacaya ninkan wuxuu arkaa tan inuu ku janniyo cadaab ay kala doorteen ma garteen marka meesha waxba la islaama harayo dahabshil weedin ka arkay oo talson weedin ka arkay oo ganacsatadii saaq oo dhan baa lacag bixinaysa dagaalka nin walbana lacag baa loo qoray dibadda maanta jooga ma garteen waxba yaan hidii iyo reer hebel baasan maya reerkan way wada socdaan maanta kelmad baana maanta soo baxday kelmadda cusub ee taala careysa waxa weeyaan dhulbahante iyo Soomaaliland waxaan ku ninka odayga waxa idii qurux badnaan lahayd inaad tiraadaan dhulbahante habar jeclo ama dhulbahante iyo isaaq bari ama dhulbahante iyo maxay raahday isaaq laakiin dhulbahante iyo Soomaaliland miyayna taasi dhaawacayn waxaad raadinaysan miyayna taasi ku tusaynin baa ku uri in mustaqbalkii dhama halka ay ka baabay wuxuu yiraahdo waan fahansanay weyn baan laakiin ninka ay caana kaga daadanayaan aniga ma habuuri laakiin ninka kaga daadanaya waa ninka fikirkan keenay waana ninka aaminsan 2 sanadood inuu halka qasabiisa bil ku soo fadhiisto waa sax dhulbahantii maanta waxay leeyihiin muusabix cadaadis haysta dhulkeeni way banaynaya waan hubnaa wuu cararaya dagaal ma isaga soo qaadi kara ma isaga sida yeeli kara dhulbahantu hurdada ka toosa nimankan waxa ka dhaadhacsan cadawtinimo fog wadna u jeedaan xogta oo ninka odaga ahna la wadaagay waabtigii uu la wadaagay tolkiisa uu u sheegayo waa wax nagu filan intay goortay hurdada ka toosa barnaamijkan mid lamid intaanu ku kulmi doono
daawadayaal waa Cabdullaahi Balwaan oo idin leh si aad ula socoto barnaamijyada aan kusoo gudbiyo kusoo